السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنتين كسر هذا another vlog إن شاء الله تعالى ما أنت وحواي شني لواتنك جون وحاوسي قد قلنا اللي لواتنك جون إن شاء الله تعالى وإلى سعودون تين فلوق روح بدنا كسر ديار دونا هذا وين عشان صارنا ملك لماها وبدر سو جديد بقى دبق سرق بدر مركب حواي halkaa hoosana waa baakinkii iyo dhammaan meesha dadweynaha iska fadhiisanayeen lagu shaaxinay meesha sidii muuqatana waxa waaye suuqi kor insha Allah wala socdon TV do qurux badan aad u weyn insha Allah waa inoo caawa jadiinba inta joognaa magaaladii hoose السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وقف فرمان سلام دوام مجلسة من تقوها تقوليه كل مرة دوانا الجيرة الجيرة تبيننا شوف عاصمة الجيرة شاف حاضر أي قوم الجيرة كان عاصمة الجيرة سمرة شعب كسرنا كمان كذا هذه مرة كذا فهذا هو في سراتي ودمان صار وفي البعيد وفي في الدنيا سيدنا محمد لا يخلق وايدو شرطو وجولاني دالوان أتوا خبيش وعلي أتني سيف الروحة كلها الروحة ديار واري سوق بنا نمبر كم تشينو أولا مكة قراتين عادلون الكيسة أولا مكة قراتين عادلون الكيسة أنت سلامة تعالى الله عالم فوضى عباك المدوغة تبدو على كثير أتكسر اعتبادي إذا غبي عدادي أنا لا أعرف يوم كذا قرائي أجل كنت أريد أن أعرف في كاي أتكي المستجابة سيدي سيبو عرف كاي على يوم بلوغة على العشيرة على لك فريقة بتاعي لك المدية أنا إذا الله جميع يطلب عافية حتى من يجيب لك على القبر
intii ku dhimatay kale isaga caadaqaataahe kama cagatumeeyaan wala ciidankaa badane ashaha eebaha ku mudaya ku cayaartumanay sida gelinka ciidan dunya looga tahay caane cawar buugaadaayo cashiiraahe alab laga xoray loodinka ciida kaa mudaya cadowga allaha tiriyey ku caafiyada waxaan ahay awaala yaskari kuu cadaaladahe midaan carabin baan ahay markii cadowa saayaane ekonow adduunyada intuu cadiga nuuxsaayo cafin maayo taan rabin inaad lubatin caaddaase orad aan ku faanaatiyo lana canaantaane inta sare waxaan ugu shabahay caynka midabkaada kuma caabudayno mayna caama shuuciyahe baa u caamsanaaday ahayd caalamka idin caayo duugaada iyo cashiiraahe cadaab laga xoray muwadinka ciidda kaa mudaye cadowga allaha jeliya iyo kii ku caafiyada inta wiiliya gabar loo carbiyey cadowga layntiisa iyo oday ciroodo in badan soo cabtabinaye cabsi hooye aan lagu oqon ciribta taariikhda cadka xaawataatiyo ka haray culayadii naaftay cabdulaahi ciisiyo kuwii guusha loo oriyey iyo geesiyaal caamada ciidda kuu kulale calaywal buugaadaayo cashiiraahe cadaab laga xoray muwadinka ciidda kaa mudaye cadowga allaha jeliyo iyo kii ku caafiyada الرحمن آدية إني سلاميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت لك أنت نيا أي شرف نورت هاي إن أنا نلقى شنو سنقولان ومالين قالوا أياني فرحت من النساء waxaan dareemayaa inaan joogo dalkaygii oo kale maan filanayn in meel ka mid a dalka Soomaaliya inaan waqtigan oo kale sida loo caawin karayo ani maanta aad bay u tahay waqtiga kolay sida loo wada qabo loo garanayo waxaan nahay laba dal oo isku baahan laba dal oo walaala laba dal oo ninka midka kale au gacan qabto xilliga wuxuu u baahan yahay ma kala maarano waxaan nahay dal keliyaata aad baan inagu hambalinayaa dhammaantiin madax iyo madax ku-xigeen iyo shacab dhammaan waxaan inaga leeyahay soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام. waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid golaha wasiirada guddoonka ama maamulka degmada ama caasimadda dhuusamareeb iyo dhammaan marti sharafka kale qof kasta waxaan ku salaamayaa magaca iyo maqaamka uu halka ku fadhiyo
waxaan si gaar ah aan ugu mahad celinaynaa maamulka degmada iyo xaafadihiisa kala duwan dayax horseed waa beri hodon iyo waxaan cadda dhammaantood shanta xaafadoodba waan u mahad celinaynaa runtii sida wanaagsan oo ay uga soo qayb galeen munaasabadda 26 juun oo runtii ah maalin ummadda Soomaaliyeed taariikh u ah sida muuqata ama aad ogtihiin 26 sidii ay SYL ay u jidaysay ama u qorshaysnayd waxay ahayd 26 oo Soomaali galbeed oo ah meesha la yiraahdo Soomaalida meesha la yiraahdo Hargeysa ilaa gobolada waqooyi iyo 27 oo ahayd walaalaheen Djibouti iyo 28 oo ahayd Soomaali galbeed iyo NFD oo loo qorsheeyay in ay noqoto 38 iyo 29 oo halkana kowda soddonka oo ah meesha la yiraahdo koonfurta iyo kowda July oo ahayd maalintii midowga Soomaaliya oo dhammaan ay ahayd in ay midoobaan ase ahaatee ay dhacday in ay midoobeen laba gobol oo keliya ama labo qaybood oo Soomaaliya oo kamid ah oo xorriyadii ay heleen run ahaantii marka laga hadlayo waxbarashada madaniga ah shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan muhiim ayay u tahay in ay bartaan taariikhdoodii in ay bartaan waxyaabihii sooyaalka u ahay in ay bartaan xilliyada ama maalmaha taariikhiga u ah in ay bartaan dadkii Soomaaliyeed ee ka soo qayb qaatay xorriyaddooda in ay bartaan waxay ka mid tahay cadaaladda oo madaniga waxaan u mahad celinaynaa runtii sida wanaagsan oo ay u soo abaabuleen maamulka degmada mar kale waxaa muuqata in dadkii ku habboona la helay ugu dambayn waxaan ku soo dhawaynayaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid waxaan rajaynayaa inaad ila soo dhawaysaan muxuu Somalia ومحسنتين بسم الله الرحمن الرحيم وسيلة دوميها الدجملة دوميها الحجينكا راكيشة دملة قلب سيدة دمال هوينكا يدميرنا عاوة أي شمس وتوردة وحديث السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد جيد عاوة وهبين وين وهبين ومنان سوماليات أيوة تفلتقيان sanad guuradii lixdanaad ee ka soo wareegtay markii la qaatay xorriyadda Soomaaliya run ahaantii waa habeen weyn waa habeen kumanaan Soomaaliyeed iyagana inta ay ku jireen halganka ay wax ku noqdeen oo run ahaantii naf badan loo soo furay halgankan guud ahaanteen waxaan wadanahay caawa inaan mataqaanaa u ducayno halgamayaashii u soo halgamay calankan u dhintay u dhaawacmay inaanu horta ugu horeyn faatixada u marno ilaahay inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo ilaahay u naxariisto jannadii firdowsana ka waraabiyo waddankan Soomaaliya taariikh way ku leeyihiin guul weynna waa u soo hooyeen dhalinyarada maanta joogta waxaa laga rabaa ilaahay hadduu yidhaahdo inay dhalinyaradii waqtigaa xorriyadda dhaliyey SYL iyo uradii kale lahaa in lagu daydo Soomaaliya maanta waxay ku jirtaa marxalad adag 60 sano kadib xorriyaddii inaan maanta sidaan u naalo waa ayaan daro waa inaan ka kacnaa cadowgana haysta waa inaan iska dulqaadnaa waa in la isku tashtaa run ahaantii Soomaaliyana ay u jihaysataa wadadii horumarka iyo baraaraha caawa waa habeen weyn waa habeenkii fagaaraha qayriyadda magaalada Hargeysa laga taagay calankii Soomaaliya oo markaasi ka taagnaa dhul xor ah run ahaantii xus gaar ah ayay naga mudan tahay waxaan rabaa caawa in yar inaan ka taabto wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee hadda socda oo run ahaantii ku soo aaday 60 guuradii ka soo wareegtay maalintii xorriyadda walaalaheenna reer waqooyi run ahaantii xorriyadda qaybtii ugu muhiimsaneed bay ka ciyaareen inay mataqaanaa dib u soo celiyaan xorriyaddii waa u dagaalameen calankii bay taageen
waa noo keeneen muqdishoay noogu keeneen si shuruud la-aan xaqiiqi aniga iyo dhalinyaro badan waxaan qabnaa in maanta somaliland loo tanaasulo wadahadallada lagula jirana mataqaanaa wax badan looga tanaasulo si loo soo dib ula midoobaan